saas ku taalo ayaa isbitaalkan ku keenay afartaas dhaawac waxay ahaayeen laba qof oo daran iyo laba qof oo xaaladdu normal tahay labadii qof oo dareed mid wuxuu dhintay xalay fiidkii hore ama halkii saac habeenimo dhaawac kalena hadda maanta loo rajeynaa in loo qaado xamar oo transfer waxaan u sameeyeen xamar aan u refer gareyn halkee laga keenay dadka waxaana loo sheegay in laga keenay deegaanka Gadoon oo rasaas ku taalay marka accident ka dhacay deegaanka Gadoon ee dabcan dadkaas ku soo waxyeeloobay laga keenay afar raga nin xabada ku taalay oo u taalay meeshan dhabarka iyo caloosha u taalay ninkaas uu dhintay nin kalena waxay u yeelaan xabaduhu lugaha iyo caloosha ninkaas wali uu fiican yahay uu nool xaaladiisu waa normal oo loo adeegay emergency-ga loo qabtay ilaa xalay dhaqaatiirtu waa la tacaalayeen waxaan rajaynaynaa maanta loo refer gariyay xamar oo hadda la yiraahdo xamar loo qaado si uu u helo muxuu ahaa intaas daryeel ka badan halkan ilaa hadda saddex ku sugan mid laga qaadayo lamana waa xaaladoodu waa normal shaqadoodu waa loo qabtay wali isbitaalka jiifaan waxaan rajaynaynaa inay ka soo ray doonaan waana fiican yihiin xaaladdu labadaas isbedel weyn ku jira hada ninkan xala markana loo keenayay ilaa iyo waxa lagu shubay 2,000 oo dhiiga aad u soo dhiig baxo ahaay luguhu iyo gacnuhu jaban yihiin marka wax badan oo shaqo badan laga qabtay dhaqaatiirtu way la tacaaleen xaaladdiisuna